hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta dalka dibadiisa u dhoofay tan iyo markii uu kursiga baneeyay ayaa wuxuu sheegay inuu galayo fasaxiisii ugu horeeyay. Xasan Sheekh Maxamuud oo garoonka Muqdisho ku sii sagootiyeen afayeenka baarlamaanka Soomaaliya iyo xildhibaano ka tirsan labada gole aqalka iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa ummadda Soomaaliyeed ka codsaday in si buuxda loola shaqeeyo dowladda federaalka Soomaaliya oo hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan u dirayaa salaan iyo hambalyo wanaag iyo guul ayaan u rajaynayaa. fasaxigii ugu horeeyay ayaan galayaa muddo kooban waana soo noqonayaa hadii la yiraahdo. dhammaan waxaan mar kale ugu baaqaa ummadda Soomaaliyeed in ay dowladda Soomaaliyeed la shaqeeyo, dowladnimada in laga shaqeeyo, wax kasta oo dowladnimada saaciidayana in la saaciido in laga shaqeeyo. mar kale waxaan rabaa inaan ku celiyo Soomaaliyada cusub ee dowladnimadeeda cusub la dhisayo mucaaradad iyo buuq iyo iskahorimaad meel ku malaha aan iskaashado isgarab istaago dowladnimada la garab istaago. hogaamiyaha hore ee federaalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shacabka ku baraarujiyay inay isu gurmadaan isla markaana la badbaadiyo dadka abaaruhu ku haystaan gobolada wadanka Soomaaliya. inta ka bacdi waxaan ummadda sidoo kale u baaqayaa in meel kasto ay joogaan istaageeraan arinta abaaraha waliba in shacabka aad iyo aad loo taageero. maanta mashruuca ugu weyn oo yaalo waxay tahay nafta Soomaaliga ee baahan in la badbaadiyo. marka taas ayaa iyadana baaqa labaad ugu baaqaya. ilaahay waxaan ka bariyaa in roob khayr qaba oo caafimaad qaba oo dalka iyo dadka iyo dunyada iyo muxuu ahaa intaba ay ku naaxaan in ilaahayna siiyo. dhammaan qalbigan Allah u sameeyo marka la halees cafiyo ilaahay ha loo dhawaado ummaddu ha iskaashato. meeshaas ayaa wanaaga adduunyo midka aakhiraba ku jira. aad iyo aad u mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa kal hore wuxuu sheegay inuusan dalka ka bixi doonin isla markaana uu deganaan doono magaalada Muqdisho iyadoona lagu daray baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo hadda ku yahay tirada guud ee baarlamaanka 276 mudane. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Honkabel TV magaalada Muqdisho.